higankeni iyo hawlihi guud iyo guryanti wa horseedaheli horseedaheli dalka horumarkiisiyo intisaha dhismaha qaran wayrganiyaheni jangoynta himilada nashqadanta herbe waa hala sii qarano migsigiisu meel maray waa hawlihii guud garhaya ilaaliya danta guud heegana بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهدل مركة هراء وحان هالكم كسور نوينيا أقاسمها واحدة ديسكا يتيادة وساردة حولها قدولك يقرينتا وصفر كيسان شقو نقصوا بغضي قبل الساحل قارهان مقالة بربرمانتا isagoo jeedadiisu tahay in uu kormeero mashaariicda dhismayaasha ah ee ka socda gobolka saaxil mudanagaasi waxa halkan ka socda 3 mashruuc baa imika socda kuwii hore u dhamaadeen waqti xaadirkan waxa socda 3 mashruuc 3 mashruuc waxay kala yihiin mashruuca dhismaha wasaaradda macdanta iyo tamarta oo loo dhisayo laabka macdanta wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo xafiiskii gobolka ee wasaaradda macdanta iyo tamarta almost waxa gacanta ku haysay dhismahaas shirkadda Oslo Construction Company oo uu nala joogo waqti xaadirkan aadan uu nala joogo 95% way dhameystireen aadan iyo kulli insha Allah maalinta siniinta waxaan u balansanahay inaan kala wareegno furayaasha dhismaha wasaaradda macdanta tamarta oo dhameystirmay waxa kale oo socda mashruuca loo dhisayo lagu dayactirayo 2 hangar oo loo wado hay'adda aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka iyo xafiiskii gobolka ee isla hay'adaas waan soo marnay waxa aan jeclahay inaad soo aragtay midanaagaasimi waxa gacanta ku haysa shirkadda la yiraahdo Global Construction Company oo uu nala joogay Sayid injineerkii shirkadda ka mas'uulka ahaa oo qoladaas waxay marinayaan dhismaha shirkadaas waxay marinaysaa 70% waxa u dhiman 30% inay ku dhameystiraan insha Allah wali waqtigoodii bay ku ciyaarayaan inay haystaan waqti kama dhicin insha Allah 30% kaasina way dhameystiri doonaan waxa aan ugu dambeyntii joognaa halkan oo ah xafiiska wasaaradda maaliyadda loo dhisay gobolka saaxil waxa loo wadaa dhisme dayactir dayr lagu kordhinayo xafiiska cashuuraha bariga waynu aragnay waxa gacanta ku haysa shirkadda Mama Construction and Contracting Company oo mas'uulkeedii isla waqti xaadirkan la taagan yahay dhismihii halkan waxa ka socda storekii iyo qolkii washmaanka iyo parkingii gawadhida oo shirkaddan gacanta ku hayso insha Allah ta'ala waxa aan midagaasi insha Allah kaaga warbixinaya in shirkadahaasi si la rabay ay hawsha u qabteen ka wasaarad ahaan inagu waxaynu lahayn ilaalinta tayada iyo dabagalka dhismaha in sidii loo baahnaa wixii aynu mataqaana rabnay in la dhiso in shirkadahaasi dhisaan waanu daba joognaa site kasta engineer baa inoo qoran si wanaagsan bay shaqada u qabteen waa ku amaanan yihiin ilaa imigana wax dhibaato ah adigaba indhahaaga waad ku soo arkayso ma jiraan waxa kaaga marxaatiyada maanta oo ay jimcad tahay oo fasax wadanku yahay inaynu shaqaynayno oo aynu joogno barbaro kuleelkeedan arkayno marka waxaan soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha waaxda bismillaahir rahmaanir rahiim awalan isku duwaha gobolka saaxil injineer mursal gudoomiyaha shirkadda Mama Construction injineer Hibaaq iyo gudoomiyaha shirkadda Oslo Meidi aadan dhamaantiin horta salaamantiin waxaan u joognaa halkan oo u taaganahay waa mid kamid ah waajibaadkeena shaqo oo ka shirkad ahaan adigu waajibaadkiina ku gudanaysaan ka wasaarad ahaanna anagu waajibaadkayga ku gudanno anagoo fulinayna ama wiirta shaqo
ee ay ka wakiilka yihiin wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud. taas oo ah waajibaad qaran oo na saaran oo inoo wakiisheen waxaan ka isku duw ahaan kaaga mahad celinayaa sidaad uga soo baxday ka heer gobol ahaan shaqooyinkii ka socday oo indhahaygaan ku soo arkay sida habsamida leh ay u socdaan. shirkadahana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin nidaamka sidaad u raacdeen nidaamka BOQ-ga idigu qoran aad u raacdeen aad ugu fuliseen maxay ahayd mashaariicaha idinkoo aan waxba ka hakranayn. midda labaadna waxa weeyaan waxaan rajaynayaa inay maxay ahayd inagu dhammaadaan sida ugu dhaqsaha badan maxay ahayd sidii ugu habboonayd inta inoo hadhay. midhanna waxay koob u tahay xoojinta iyo ilaalinta iyo dabagalka dhismayaasha oo ah waajibaad qaran oo noo saaran ka wasaarad ahaan ka waax ahaan iyo ka heer gobol ahaanba. waxaana rajaynayaa isku duway inaad halkaas kaga sii wadaan dee kolley shirkadahana waan soo arnay sida habsamida leh ay wax u dhiseen recommendation letterkoodii iyo waxoodiiba insha Allah markay dhammaadaanna dee aduunbaa kolley kasoo tala bixin annaguna waajibaadkayga heer qaran haalid baanu ka qaadan haddii ilaahay nafta nagu simo. tanna waxaa dhammaan dhismayaashana waa dhismayaal laga hirgeliyey miisaaniyadda dowladda oo ah miisaaniyadda 22 oo ah maxay tahay cashuurtii bulshada laga ururinayay oo dib loogu soo celiyay si ay u anfacdo ay u noqoto goobo loogu adeego oo loogu fuliyo danahooda shacab ee dowladdu uga wakiilka tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.